oo amirihii ka dhashay shirqoolkii gaalada iyo abuurkii hore ay sameeyeen waxa weeyaan arrinta maanta Soomaali isku laynayso ee qabaliga siyaasadda gaalaad ku daba xiran qabyaaladda siyaasadda gaalaad ku daba xiran waxaan sidaa u leeyahay siyaasadda gaalaad ku daba xiran markii hore to qabyaaladda yaa sameeyay dad badan oo waxay u haystaan Soomaali inay iska sameeyeen ayagu oo ay iska dhalatay qabyaaladani oo ay sidaa iska soo ahayd bay moodaan maya ma ahayn sidaa dadka Soomaaliyeed qabiil way ahaayeen mushkiladna ma aha cidina ma diido ma tiraahdo qabiilka maxaa qabiil loo sheeganaya ama loo magacaabaya ma aha ujeedadu waxaad wada ogsoontiin dhammaan annana aynu ogsoonnahay ruuxii u horeeyay ee sameeya kaaba qabiil ee mushaar u qoraahi wuxuu ahaa Ingiriis iyo Talyaani waxaa la ogsoon yahay dad xataa meel yar oo beledweyne u dhow yaa waxa degan laba family marka tira go'aan uu doonayaa gaalku oo yiraahdo qabiilkii inta gaara ayaan madax u sameeynaya qabiil walbana wuxuu doonayaa inuu u sameeyo oo ka dhigo laf u kala qaybiyo doonayaa asagu kolkaas waxay ogaadeen waxa la anagu isku hal qabiilaan ma yala qabiilaad kala tihiin buu yiri adinka waa niman isla dhashay weey adinka reebel la yiraahdo adinkan reebel la yiraahdo kuwan reebel la yiraahdo haye kuwii aan qabiil dhamayn afar aan isku leexaa oo yiri xoogaa group marka qabiilan u sameeyaha ilma adeer wax la yiraahdo u sameeyaha oo yiri oo fiirsad hadalkan dillaay waxaad yeeshaan buu yiri saddexdii noqolo meel isku dhow shirka ku qabsada waxay ku qabsadeen kuwan anigu aqaanay markii la ii sheegay magaalo yar oo matabaan la yiraahdo adunka taqaaniin iyo mid kale oo yar oo la sii maro goofada la yiraahdo ka dheerayn iyo magaalo meel yar oo bal u dhow mir qurac la yiraahdo saddexdooda ninka guuleeya iskaga ma haraado maxay sameeyeen marka gaalku wuxuu yiri qoladaas markaan u tagay way birmadaan oo duurkay ka birmadaan markaas ay qoladii kale u buuxiyaan waana awloogiyahay ugu hadda markii saddexdii qolob isku meel isku tagaan markii ayaga loo imaanayo gaalka Talyaanigana waa og yahay inay mid walba uu sameeyo kaaba qabiil oo raba asab kolka goofada u ordo kuwa matabaan jooga kuwa mir qurac joogaahi geesahay ka kala ordaan kolkaas waxay u tagaan kuwa goofado markaas yiraahdo dadka intay isoo arurayaan suga waa kuwa soo orday intay ka soo gaarayaan way saddex kaaba qabiil buu ka sameeyay dadan hal kaaba qabiil isku dhamay wuxuu yiri nin walba qoyskaaga adaa ka mas'uula talaadan adigu goynuna kama go'do nabadaadan adigu saxiixno ma saxiixna dagaalaadan adigu saxiixno ma saxiixna nin taladaada goy karo kalena ma jiro adigana mushaarkaas leedahay ugu arinta nin walba markaas yiri waa sax weey cimaamadiisa xirtan nin walba wuxuu yiri aniga ayaa meesha ka boqora buu yiri arintaas waa ku meel gaar bay ahayd waa intan iskuulada laadiiniga la sameeynin weey ogowtaa iskuulada laadiiniga intaan la sameeynin oo aan la tarbiyadaynin kooxo fara badan oo Soomaali ah intaan la sameeynin oo luqada Talyaaniga iyo Ingiriiska ku hadla intaan la sameeynin weeyaan arinta kaaba qabiilada oo sameeynayo mushaarka 80 shilin u qoraya waa waqtiga weeyaan iyo 30 shilin waxaad garan maay nin walba wuxuu siiyay marka qaacida la yiraahdo qaacida qabaliya oo ninkaas aan loo taaba karinin oo asagu uu sayidka iyo qoladiisa gaalka Talyaaniga toos oo la xiriiraya asagu wuxuu balaariyo kolka qaacidadii qabaliga ahayd oo ahayd fikradii gaaladu ay asaaseen asalkeedaba ay asaaseen ahdaaf siyaasiya iyo mid diiniya iyo mid dhaqaalana intaba uu kala lahaa ayuu asaasay ahdaaftan waxay ku salaysnayd farriq tasud kala qaybi oo kala gee aad adigu sayid ka noqotidi shajci alqabaliyata badal alaqida qabyaalada xooge oo sara u qaad ayadana han noqoto aqeeda iyo iimaan la rumeeyo bedelkii diinta islaamka inuu dhigo marxaati baad iiga tihiin waxay gaarta marka ninku inuu yiraahdo qabiilkaygan u dhimanaya inaan dhintaan ka jira intii qabiilkayga wax loo geysan lahaa laakiin taa aanu iimaankaasi gaarsiisnayn inuu yiraahdo kitaabka quraanka aan u dhimanaya hadii wax la gaarsiiyo hadii rasuulka la caayana waan u dhimanaya inaanu gaarinin marka waxa looga dhigay aqeeda ay rumeeyaan oo ay u dhintaan oo aan kala go'ay karinin oo maanta markaysa jirta ayaa laga dhigay arinta ayada insurance buu ka dhigay insurance تأمين اجتماعي بو كدغاي
أو ليه هي قابيل كاسا اسكو حرن انتاسا اسكو قبيلة سيدان هوري بأوسو شيغي وحو سميي حماسة دفاعية أي أسميي إن قبيل كاللورد انتو وحو سميي أو كالي كلمات لغوها قونصدو قبيل كاس وحو قيدي هدنا إنو يري هذا هالكاسا حوليه إنو داقي كران تليانيغا انتي رصد حقا كمرتا قلوها ساسكالي انتي دقمي داسنا قلوها ساسكالي أيغا حكومان ومعمولان وحا نوكسونها مركاسي أرنتي ساسا هاي مدارسكي أيها الله فرقلكاه وحو يري قبيل والبينتو يركا بقبيل كودي كان سو أدو كنتم ويلون كو صابرو تعلين تيدا أن كو صابرو كنتم ويل وان تعلين تقالة كو صابرو كان سو أو متعلمين كون نقطة دكي أن شيء يمن أيو قادي لكن وحي نوصون نقدين أيغو عدوغي قبيلك يا عدوغي دينت يا عدوغي دلك أيغو أي صون نقدين عقيدة دودنا أي تهي عقيدة كافرة دقن كودنا أو دقن قال waxa ay ku dhaqmayaan dadkay midabka uga eg luqadana ku hadlayaan laakiin wax kale oo hayaan aanan jirin ay soo noqdeen waxa uu sameeyay nimankaasi waxay soo noqdeen laadiiniyiinta ama cilmaaniyiinta loo yaqaano in ay ayagu bedelaan makaankii kaaba qabiilka inay bedelaan waa mid maanta jirta weeyoon raba inaan idin dareensiiyo wey nimankaasi waa laadiiniyiin oo diinta islaamka ma rumaysna badankooda dhaqankooda iyo suluugoodana waa dhaqan gaalaad qalbigana waxay ka jecel yihiin ka rumaysan yihiin gaalada walidaalika sidaas aad u arkaysaan nin waliba oo ayaga kamida diinta islaamka uguma jirto qaamuuska uguma jirto ayan kaana uguma jiro waxa qaamuuskiisa ku jira inuu yahay asagu kaaba qabiilkii qoyska inuu asagu yahay wuu bedel marka arintii wuxuu ku magacaabay mutacallimka qabiilada wuxuu ku magacaabay siyaasiga qabiilada wuxuu ku magacaabay indhaargaradka qabiilada wuxuu ku magacaabay nimanan seef laboodo hayn oo la garan karo laaf garan karo asagoo og meeshu ku soo xalaalay ayaga dhan waxay la dagaalamaan nimankaasi oo ay aamineen in la dagaalamo diinta islaamka oo la cirib tiro waxa ay doonayaan inay bahaystaan gaalka intay bahaysan lahaayeen midka dadka ku dadka ujeedada marka haday gaala yihiin ay dadka ugu dhex jiraan waa maxay wali haddaan doonaya inaan ku cadeeyo kolkaa waxa lagu tadriibiyay nimankaasi in ay aqbalaan oo aanay marnaba muran ka qabinin siyaasiyan iyo iqtisaadiyan iyo tacliimiyan iyo idaariyan inaanay waxba ka qabanin maamulka gaalada oo ugu sokeeya amxaaradu ruuxa diinta leh ee damiirka leh ee wadaniyadda leh ee caqliga leh ee caadiga ahi marna ma aqbali karo amxaara injiray inay u talido ma aqbali karo ما أقبل كر لكن وحلو أقبل سيء أثنتي سأساق معها وأن كيسنا أساق معها تبرنا والبسوسيتا إن دعم دقالة أما كلمة دقالة يا قوس السياسات مدنا إن لسينين هدان وقبيلة هور استياجنين وقبيلة عن وأساق مدح عين أساق كوسيدنين waxay ka soo ordeen Yurub waxay ka yimaadeen Mareykan meel kasta intay ilmihii fogeysteen qaarkood ayay soo noqdeen isagoo nin walba doonaya inuu dhaqaalahana asagu helo ummadana oo gato xabadaha dhacayana waa xabado gorgortana oo lacag lagu raadsanayo way marka ummadda dhiigeedu waa mushaarkiisi asaga ummadda burburkiisuna waa korskiciisa asaga ummadda diin la dagaalankeeduna waa asaga horumarkiisa weeyaan
wax alla waxa ka socdaahay Soomaali waqooyigeedii koonfurteeda oo idil dhammaanteed waa taa weeyaan ninkii igu jeclaalahay ugu jeclow kii igu nacbaalahay ugu nacbow nimanku way waa Soomaali midabka xaqiisa la yaqaan aabayaalkii dhalay hooyooyinkii dhalay laakiin Soomaali ma aha waa inaad ogaataan taa nala kama dhaadhici karo waayo waxa la caqiideysay caqiidana la kaga dhigay u gargaar midka qabiiladaada gari gardarab u garbee dulmi iyo dulmi la'aan ba garab istaag hadduu daba ay ka qaloocan yahay kayga maxaa laga rabaa ka kala qabiiladeedu waa wada tahay hadduu gaal yahay gaal kala rabaa qabiiladaas midkay wada tan lamid hadduu tuug yahay tuug kale tan anigu ma rabaa hebel anigu ma raba laakiin hebel aan u haystaa maxay tahay language-kaas luqadaas waa tee waa luqan nin madaxa ku taagan oo aan lugaha ku taagnayn weeyaan waa dhaqan loogu talagalay in diinta lagu xabaalo lagu abaaso isagu dadka wuxuu leeyahay qabiilka dantiisaan ilaalinaya waayo diinta marnaba ma rabo waayo marka ugu horeysaba waxa laga rabaa inuu ku dhawaaqo nin walbaaba oo bari ka noqdo la rabaa waa diinta islaamka weeyaan mid kasto ayaa kamidii waa inuu yiraahdo fundamentalistan la diriraya diintan la diriraya waxa diinta wato dhamaan ka soo horjeeda waa fundamentalisti aniga ayaa ku soo dariiqi saxda waa inuu yiraahdo horta cadeeya midaasi haddii kale lama aqoonsanayo lama rabo waxa laga maarmaana ninka siyaasiga qabiilada lagu tilmaamo oo gaala taageerka ah diin islaam la dagaalankana wataahi waa in loo taageeraa loona diyaariyaa sidoo u cirib tiri lahaa diinta islaamka usuusheeda iyo furuucdeeda sidoo uga cirib tiri lahaa ummadaas haddaanu doonaynin xataa waa la keenayaa waxa la leeyahay qabso adig waad u jeedaan taa waxaa shardi ah marka hadduu mutacallim gaalada wax ku soo bartay yahay oo uu toobad keenay lama rabo hadduu toobad keeno oo markii hore qaribnaa oo islaamka u soo noqdo kaas lama rabo hadduu yahay midaan dadka hor istaagi karinina lama rabo marka waa inuu yahay mid qallafsan xiqdina diinta islaamka u qaba oo laa diini ah maasuuni ah istishraaqi ah waan fasiri saddexda kelmadoodba ha ku degdegin saddexdaa waa inuu kulansadaa waa inuu yahay Soomaali waa inuu yahay laa diini waa inuu yahay maasuuni waa inuu yahay istishraaqi saddexdaas afartaa waa inuu kulansadaa laa diinigu waa maxay markaa laa diiniyadu macnaheedu waxa weeye qofku inuu ku noolaado noloshana uu ku saleeyo bilaa diin la'aan inuu ku saleeyo lana dagaalamo diinta islaamka akhlaaqdeedana uu ka takhalluso laa diinnimadu macnaheedu waa taa weeye waxaa ka mid a bunuudeeda in la duro oo hadi jaraale weerar lagu haayo qur'aanka iyo sunnada nabiga qur'aanka iyo sunnada nabiga in weerar joogta ah lagu haayo dadkana laga shakisiiyo had ya jaraale ayaa ka mid bandigeeda asaasiga ee la diiniyada la yiraahdo waayo waa secularism way kelimad waxaan sidaa idinku fasirayaa tarjama lubnaaniya nasraaniya maqsuuda ayaa waxa ku fasirtay cilmaanina ma aha macnaheedu kelimad luqada ingiriisiga macnaheedu waxa weeye waa secularism macnaheedu waxa weeye bila diin ay fasl diin an dawla وين dadku fahmaan weeyaan marka waa tarjama ku magacaawda tarjamada ku magacaawda cilmaani tarjamatun lubnaaniyatun nasraaniyatun maqsuuda weeyaan illa qurxiyo oo laga dhigo shay la aqbali karo loo tarjamay oo sida loogu bedelo way macnaheedu xaqiiqadana taama waxa kamid ah marka bunuudeeda asaasiga ah dadku markii ay diin leeyihiin diinta islaamka hadii ay tahay saasa ku qoran diinta islaamka hadii ay tahay dadka in loo reebo waxa la yiraahdo diin duqus ah ama hadraat ah
oo aanan ruux xooga lahayn in loo reebo bes oo ku kooban masaajidka ku kooban oo aanan wax kaloo ta'thiir lahayn u fiirsada hadalka marka lagu leeyahay wadaadku waa inuu masaajidkiisa ku tukadaa masaajidku waa inay diinta aanu la soo dhaafin masaajidka wadaadku waa inuu la soo dhaafin lagu leeyahay ma aha alfaad ayaga ka soo baxayde waa tarjamada ay aqrinayaan oo xaqiiqda ah taasa waa inaad fahamtaan taa waa in laga soo reebaa diinta islaamka shacaa'ir inay wax dhibto moogi aan waxba taraynin waa inay diinta islaamka ku itihaamaan inay tahay diin dib u dhac iyo takhalluf keenaysa oo aan la soco karinin xadaarada laadiiniga aan la soco karinin amaama aljuhalaa wa xaqiiqdana waa diinta islaamku xadaara laadiini lama soco karto maxaa yeelay xadaaro gaar ahay leedahay usluub gaar ahay leedahay dhaqan gaar ahay leedahay marka inay daba kacdo waxaan diin inay daba kacdo diinta islaamku ma ogola waa sax wey waxa ay dadka ugu yeerayaan inay dadku ka takhallusaan dhaqanka islaamka caadaadka islaamka oo ugu horeeyo wax alla wixii shaciira diiniya ah dadka in laga dhartiro oo laga tirtiro hadday gar tahay garka laga xiiro oo rag yahay calaamadoo dhan shicaarkoo dhan kulligeed laga zuuliyo hadday dumar yihiinna wax alla wixii xijaab iyo ku lug lahona dhammaantood in laga tirtiro isla markaa ayadoo lagula dagaalamayana loo caayo oo qofka uu ka khajilo oo marka dambeeto uu ka cararo u adkaysan kari waayo waxaan soo naqaanay hadalka asaga ah ayadoo mujtamacaadkanaga ay caadi u tahay oo la isku yiraahdo kan waa wadaad weeye iyo waa wadaad weeye iyo maxay yihiin kuwan humbulanay sidaan u socda iyo maxay tahay kan iyo iyadu la yiraahdo laakiin meeshay ka socoto waxaan u haysan dad Soomaaliyeed iska dhahayo ka jamaya laakiin inay tahay manhaj inay tahay la fulinayo dadku ma oga mana la socdaan su'aashu waxa weeye loola dagaalamayo calaamadda islaamiga su'aasha loola dagaalamaya waa arrin meesha ku jirta weeyaan waayo ninka calaamadu ka muuqatay wadaadka ah iyo gabadha calaamadda diintu ay ka muuqatahay madaafiic bay ridayaan aan hadlaynin madaafiic aan hadlaynin bay ridayaan dacwo aan u baahnayn fasir kale ay wadaan gabadha xijaaban waa ka daran tahay 100 madfac wax ridaya waa ka daran tahay looma adkaysan karo marka madfac joogta ah kugu socdo looma adkaysan karo marka waa in laga takhalusaa تخطيطك waxaa ka mid ah in la weeraro marka ugu horeysa aan la weerarinin dadka diinta ku dhagan inaan la weerarinin ee mujtamacaadka laga fiirsado dadka ugu daciifsan markasta la soo weeraro meelo meesha ka fududahay in laga weeraro marka hore مثلا gabadha xijaaban iyo gabadhan xijaabnayn in tan aan xijaabnayn marka hore la weeraro oo laga fogeeyo gabadha xijaaban laga dheereeyo diinta islaamkana la nacbaysiiyo loona tusiyo diinta islaamka inay tahay wax khariban oo lagu noolaa karinin gabadha xijaaban waa loo kaadinaya waayo inay fundamentalist tahay ku dhaganta waa la arkaya wadaadka diinta ku dhagan oo faafinaya la soo weerari maayo laakiin kan kale ee sucluuga ee khamriyacabka ee lootada iyo qamaarka ciyaaraya ayaa marka hore la weeraraya oo laga siibaya geedka marka salka inaad ka gooydo rabto laamanka la iska soo jaraa marka hore marka laamankii ku hiili lahayo dhawaan laga jarawi waxaan kelimada ugu daraya wadaadadan rabaa karbaash aanan iminka u jeedin inaan ku dhifto hadii la yiraahdo waxa weeyaan diinta noocaas marka ee la diiniyada la yiraahdo oo u yeeraya dadka in laga tirtiro xishoodka lana dhiirigeliyo zinada iyo faaxishada la hirgeliyo oo qofka marka dambe laga soo saaro waxaan qayra lahayn oon xamiyo lahayn oo diintiisa marnaba aanan u xanuunsanin laga soo saaro waa hadafka asaasiga ay la diiniyada ku dhaqanta weey الماسونية ماسونية معناها دوا محي حركة يهودية أو سرية أوية أو أي يهود أساسين إن أي أوغان يعني حكماء مملكة الصهيون إن لأوغو لوغو تلقى لوي مركي توراة أي فعالية دي لبابا شيء كدنبو الأساسي وي فعالية دي توراة مركي لبابا شيء كدنبو عالم الإسلامي دولان كيسين لسميي أيام ماسونية لسمي وقت الأوبة لسمي ماسونية شعار بيلاده كل كزائفة أيها أكتوده لكن هادف أو لوجو تلاقي على يدك مسلمين تقول لك تعلم يا عالم ككلام
شعائر كذا وحاكمها أما علامات كذا وحاكمها سلوغان كذا وحاكمها كلمات كلا يراهدو الحرية دتك أول لقى حرية وحلا وحي ديما كليتا يعقول كليتو أنا العقوش يهودا هين لقى حرية سنان إلا هرجليو إيه ولا التنمى عالمية كلمة عالمية اللي يرادات مغشنا وكلمة يهود ويسوع أساس تأصل كذا international هذا مغش community هذا مغش كل جيد ودن وكلمة يكون قرابة يهود وكون قرابة وي عالم كأنت سكلت دائما يهود كرجت اسمه سو تاجان وليجود دائما يهود وحويان سيدا بارسايت كلا يرادوا أكليتو أي قلا إسكول معنيان قلا إسكول معنيان يكون قرابة مقعودة دائما حتى دين تو ذكرجود مشاجان وحي يرادان جودايا وكريستيانتي دائما وحي يرادان متقنا جويش أمريكان بوليسي وحاسادو جدودن كل جود أيو كل جود اسمه متوحان دائما أمات كلا يكون شقيستان أيو سوبرفايزرز وحلا يرادو أمام مسكح له حد بيري يسوي هذه الشرالة وحي كقرن بروتوكولات اليهود يرادو بندق كتاب كيسة سجالات وحي كقرن من خلال هذه الكلمات الزائفة كلمات أنا قلت أنا سمعيني إيه حرية إيه سنانتا إيه ولا التنمى عالمي وحي نو سورة قلينيسا إنام باب إنه وح كستا أو حوق أما قوة كستا أو حاكمة وأنا قوة النظام إنام باب إنه ينو سورة قلينيسا بيراتي مركا وإنا أنه أديك سنة كلمات كاس سي أن وح الله وحي وحكومة يوكالة تدمان تود أي أنا نوصو هوس كلان وأي أنا تلذا يضعو سعودان هذه الشرالة وحي هذا الشرالة هرقليان وحي يرى تحرير المرأة بروتوكولات صهيونك كيس كيو تبنات وحاكو قرن ونعني تحرير المرأة أي تحرير المرأة المسلمة عن ديانتها الإسلامية جواد المسلمة دين تيدها لغا حريو وحي يرهدين دين إسلامكم هذه قبل أي هيستو دائما دتك لا تربيين وحكي ماذا أصل كيسي سلدق يهود أنا رميسنتا قبل كي ماذا بيرهدي الماء قبل يهود يدها أيضا شعد كستهد جورسته ويهود وي أيها قاعدة دول نك يهودي قال الماء قبل كلا كذا أنا يهود بحدمه كل كواحد يرهدين هو يدوي وحقفك واحترى أمد قال لما قفك قعنت كسو صاره وهو يدوي سيدا دتيده أمد المسلمين تعطين رنا إنا ندلينه وإنا هويين قبلها المسلمين تكسرنا دين تو الإسلام كان كسرنا أخلاق ذا كدل قفك أن أول أجين وهد أجو إن هي قضية هادفة أول الربعين قبلها مسلمات كا لو كسر دين الإسلام كا هاد يشرنا الله تصيو دين الإسلام كأنه تين نيجاتيف أنا وحقوق أيضا وقولين أمر رايت سانو وقولين وحي كحورين دينت يا أخلاق ده يا كرامة ده وحينا الربان إنه كدجان جسد أنا حشود لهين أو كرة حيستو الكستا أو شيطان هي الكستا أو لعين أي كرة حيستو إنه كدجان بدونية سيدا أي كدجان قبل النصرانية ده هذا كور أدي أدوني سيد كاغما شيكيني هداد يوروب ku nooshahay sida loogu adeegtay gabadha jirkeeda looga dhigtay silca ama badeeca looga dhigtay maanta isu sheegi mayno inteena joogtaahi bilaadul kufri isuma sheegin kolka waa inuu ninkaasi noqdaa Soomaaliga ahi waa inuu noqdaa laadiinigaas aan sheegay waana inuu noqdaa maasuunigaas aan sheegay oo hadaaftaas waa inuu fuliyo weeyaan marka gabadha Soomaaliya xijaabka lagu la dagaalamayo Soomaaliya nasaara kuma noolayn yahuuduna kuma noola maxaa keenay marka nin Soomaali gabadhii Soomaaliyeed ahayd ee muslimka ahayd ee la dhalatay asaga ama uu dhalay ama adeerka u ahaa inuu la dagaalamo dharkeeda jaxjaxa maxaa keenay waxa keenay manhajka loo dhiibo la yiri fuli ayaa sidaa ku qoran tahay inta aqligu ku taxliilin oo dhihi lahaa manhajkan la ii dhiibay aniga ima khusay aqligu ku dhihilaan ma jiro hore looga soo dilay aniga ku sheego la soo tarbiyay marka haduu daabit booliis yahay iyo haduu siyaasi yahay iyo haduu yahay maanta mutacallim intaba waxa loo tusiyay kadil gabadha akhlaaqda qoysku ha burbure hadafka asaasiga ah waa ka weey waa inuu noqdaan istishraaqi
ruuxa Soomaaliga ahi ee raba inuu qabiilada hogaamiyo gacantana uu ku dhiga doonaya dalka Soomaaliyeed taladeeda waa inuu noqdaa istishraaq ayaan istishraaq macnihiisu waa maxay xarakatun asasaha al-yahuud min qibal an-nasara wa haraka ayaduna yahuudiya laakiin laga asaasay reer galbeedka xaggooda biismi diin wal mutakhassisuna fi shu'un ash-sharq dadka mutakhasisiinta ku ah dadka islaamiyiinta li hadii sharqi lagu yiraahdo daa'iman dadka muslimiinta ay u jeedaan ogaadata loogu talagalay inay ku khaas noqdaan oo ay expert ku noqdaan sida loo dabar gooyo ama loola dagaalamo dadka muslimiinta dhaqankoodii iyo diintooda waxay leedahay dhowr hadaf oo asaasi ah dhowrka hadafka ugu horeeya waxa weeye hadaf diini ah oo siyaasi ah in dadka laga tashkiikiyo oo shaki iyo tacni looga diro diintooda in laga tashkiikiyo khaasatan dadka dhalinyarada ah dadkan lagu leeyahay waa mustashriqiin ama waa lagu leeyahay waa nasaara ama kristiyaantiga ee Soomaaliya soo galay ama hadi jeeraale kanaaska ka shaqeynay oo daa'iman ku shaqeeya wadiifooyinka kale ama dhakhtarnimaha ku shaqeeyo ama economista ku shaqeeyo ama suxufiga ku shaqeeyo daa'iman waxay ka mid tahay siyaasadda asaasiga ah oo maanta ay ku dhaqanto حركة استشراق يكون قنطو قف كدين محض الله مدره أبدا لو مدره وضم المسلمين تعال وايو دين هدي لو قدر ولا فهم يوحى لقوليه أنا والدين وعلينا نقلتك واحد وضو لكن وين لو قدر بروفيشن كلا أما شقة كلا يتو وأنا أهين شقة أوفلني وين لو قدر ماشي باسم الدكتور وين كنت جا باسم الفولنتيرز وين كنت جا ضد مساعدينا وين كنت جا دقاليهن وين كنت جا جورناليست وين كنت جا ما أنت محي لبيه تمشي المستشار سياسي يعني وين كنت كان أرمها النوع عاسو كليتان وحيالها أي كو أليكتان وحاكم ذا وآت كأول لياب كلهم إمن كأوجادي وايو وحيالها فربضان أو عن كل ليا أيات شراء comparative religion واحد theology ينك اللي يرادو كل كان سميني ماذا كمذا ماذا داس أيان قلب كان نقاشيني نبا إسلا سو تاغو مركا وحوي markaynu ka doodnay waxa la yiraahdo crosska inaanay ka mid ahayn ay bible ay ku taala ma jirto wax kelmadda la trinity kitaab bible ay ku taala ma jirto yani saddex ilaaha jirta kitaab bible ay ku taala ay ku qoranta ma jirto yaa sameeyay hadaad genesis u noqoto hadaad matthew u noqoto hadaad u noqoto maanta markay kulligood hadaad u noqoto john baptist waxay ku qoranta ma jirto been iyo khuraafaad weey إنجيل متى كل جودة مركز أول النقطة هل كتابه بايبل أو رسمي يكون قرآن تمجد كلمة ترينت اللي يرادو وأنا أقول لك ما أتحداهم نكيني كرم لها ويا هذا قربان كل تحدي وكيني واي يا سمي واحد سمي إن من كل يرادو ثيولوجيانس يا سمي ثيولوجيانس كان من كل يرادو سمي يعني فقه قالات كذا كذا أيا سمي كلمة ده واحد سمي تايم كي ودق مجري أما أكون ولا أني كلون كي توماس إكوينس إيو هيجل إيو كانت إيو مركي أي سمينيين وديمود أي تصنيع أي كسمينيين أياكو كسو سميين أناليسيس أما ديفلوبمنت أي كسميين دت كانت تاسي كإيبيين لكن مد أساس لو بيس لما لها ما أنت هذا نكستو كريستيان كله دودنا نكري تكو بروف كرامة جربنا كوكو دعيا أنا كل كلمة دقات ما أنت ويدي نكستو ويدي كريستيان تيا نكري تكو كيني كالترين تيجي كوكو كيني كرامة وحكم ده عيسى إيو إله إيه الروح القدس سد حدوده مركي لاسكو دارو واسكو هل إله أنت كرو إلهي سنوات شوكس أنت كرو إلهي يالا ومضحكات مركي هل إله هتشرى مركة ضمبه وحن كويدي وحن كويري إله يهودي كينو مسكو مدبع كل كهزة يراهدي كو شوكس كمركي لغا ريبها سد إله بدأ من سنتين حاجات سو قليسان مركي لدرسيو مونوثيست iyo dualismka iyo tribalismka marka la yiraahdo iyo atheist waxa la yiraahdo xageed soo galaysaa ma ku iri halka diina iyo labada diimood iyo saddexda diimood mid ka rumaysan iyo diin la'aanta xageed soo galaysaa hadaatiin adinku marka trinity waxa yiraahdeen waxaanu soo galaynaa qolada halka diina rumaysan aanu soo galaynaa muslimkaanu ku noocnaa markaas oo kaleeto oo seed ugu noqonaysaa ma ku iri soo adinka trinity ka rumaysan oo saddex ilaah rumaysan kolkaas ay yiraahdeen creator كموجي أنت كلا ترى واتشوكس بيرهدي وكفتن أنت كلا دن كفتن وي كلام جميل يا أيدين كان مرك
waxaad iga tusidaan baan ku idhi ninkii professorka yahay jaamacadda dhigaya waxaan ku idhi markii dambe waxaad i tusidaa hal kitaab oo bible oo aad leedihiin adinku ama inkirsanaa ama raacsanaawe oo ay ku taala trinity-ga ay tusi ma jirta buu yidhi maxaa idin daba dhigay baan kolkaa sidaasaan u haysanaa buu yidhi annagu yani waa taqliid acmaa wey diinta islaamka buu yidhi waa diinta markii la yidhahdo fundamentally diinta ugu rasmisan way tahay buu yidhi laakiin ma aqbali karna buu yidhi maxaad u aqbali weydaan ku iri wuxuu yidhi aniga hadday kaligay la weydiiyo waan dhihi lahaa waan aqbali karaya yani academically laakiin diinta aan rumaysanahay oo aan ahay priest nin diinta looga dambeeyo ma aqbali karaya buu yidhi waayo haddaan anigu aqbalo dad badan baa iska raacaya buu yidhi oo aan iyagu waxba baarin waxyaalaha dadka muslimiinta diinta ay uga shakisiyaan waxaa ka mid a diinta islaamka asaaskeedu waa qur'aanka iyo xadiidka labadabana carabay ku qoran yihiin marka diin alla soo dejiyey say luqa carbeed keliya ugu qormi karta ilaahaas diintaas soo dejiyey marka waa cunsur bay yidhahdeen macnaha waa waxyaalaha loo yaqaano apartheid buu sameeyey bay yidhahdeen carabta seed u rumaynaysaan bay yidhaahdeen hadalka ay keeneen inuu run yahay iyo inuu been yahay seed ku kala ogaanaysaan iyagoo carabta dadka iminka nool ugu been badan bay yidhahdeen dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayay ka dhaadhiciyeen qadiyaadkaas iyaga ah kolkaas iyagoo wareersan iyo yimaadeen maalinkii dambe waxay ku qaateen course aan diin shuqul ku lahayn oo la yiraahdo philosophy bay ku qaateen si kale uma ogeyn maalin baan socdaan ma intaan ka soo baxay baan ku iri kuwa meel taagan salaamu calaykum salaamu waa dhaqan carbeedkii weey ilaa gaalkiiba uu soo sheegay sida salaamu calaykum waa dhaqan carbeed baha oo maxaa salaana iska warana salaanaha yiraahdo waxaan taa idin leeyahay waxa uu bilaabay mid masaajidka nugula tukanay maalinkii dambeeto oo koorsadaas qaatay inuu yiraahdo quraanku inuu sax yahay in wax lagu daray wax laga gooyo la kala garan maayo caraba oo asal carabtuna si authentic ah uma sameeyaan waa in yaro Soomaali ah maanta markii masaajidka nala tukanayay oo wanaagsanaa way markii hore waxaan idin sheegay taa idin kugu leeyahay takhriibka iyo fasaadka ay ku hayaan oo maantayto ay ku itihaamayaan waxyaalaha tacniga asaasiga istishraaq way ka shaqeeyeen tashkiika diinta waxa kulli faaqan ruux alla ruuxi diinta islaamka saldhig waa maanta in la yiraahdo oo istaamb lagu dhufto la yiraahdo waa mukharrib weeye nin kasta oo diinta faafiyaahi dadka in la dilo oo wax qalla qaribo ka shaqeynaya sida darteed diintaas diin sax ma aha waa diin violent ah iskaga tag oo ka dheeraada in la yiraahdo wadaad kasta oo diinta maanta ka hadlayaahi agtooda iyaga waa muttaham weeye ama hay yaqaanin ama yaana aqoonin waa muttaham weeye hadafka labaad oo miraha ka mid oo istishraaq ay leeyihiin waa hadaf iqtisaadiye weeyaan wadamada muslimiinta kolkii dadkooda la gacmo duubo oo diintii laga saaro oo dadkii wax bartay laga dhigo hiilka gaalada laga dhigo ku biiraan dhaqaalihii wadankan ay cuuryaamiyaan waxa ay doonayaan dhulkaasi khayraad kasta uu leeyahay inuu daa'iman ku noolaado suuqa reer Yurub ama Mareykanka wixii ka soo baxay inuu kaliya ku noolaado waxaan la yaabay 83 markaan ka shaqeynayay isbitaalka Sacuudiga yaa waxay soo qortay jariidad Sacuudiga ay leeyihiin i'tidaar ay cudur daaranayso dawladda Sacuudiga oo Ronald Reagan oo markaas ku eedeynaya isaga oo uu leeyahay sidee baad u gadan kartaan muntajaad aanan Mareykanka ahayn aan suuqda Sacuudiga ugu aragna waa inaad yaraysaan oo muntajaadka aad wadamada kale ka keenaysaan aanu ka badanin 20 boqolkiiba 20 waa ka badanin boqolkiiba 80 kalena oo hada Mareykanka mid ka yimid waa wadan batrool leh dhul zaraaca la dhigin janubka markii laga fiiriyo xor oo meeshu doon in wax ka keensada xaq u leh kolkaas waxa lagu ciilayaa oo la leeyahay muntajaadka ama waxyaalaha ay soo saaran productiga Mareykanka waa inuu boqolkiiba 80 suuq inaad u ahaataan adinka ayay kalimaan khaliijka dhan way marka waa suuq inay u ahaadaan had iyo jeer ale wadankanagi waan ogsoonahay nin kasta wax soo bartaahi waa laangare waayo meel wax ka soo bartay oo macna lama gaarsiinin inuu wax soo saarano looguma taligelin inuu wax damiraa loogu talagalay marka waa inaad taa ogaataan
suuq marka ayay u tahay aswaaq tijaariya oo dadkeedu aanan wax taxarruga samaynin weligoodna gaajo iyo faqri iyo jahli iyo wixii lagu noolaada daa'iman oo gaalka barakaysta wuxuu u soo rida ayaa daa'iman laga dhigay oo sidaas ayaa loogu talagalay waxaad ogsoontihiin waddanka Soomaaliya waxyaalaha indheergaradkii looga saaraya iminka oo loogu talagalay aanan la doonaynin iminka Mareykanku si aqli dhaaf oo u geliya Soomaalida Mareykanka u geliya waxaan nin baan weydiiyey expert ku ah oo Mareykan oo Indianapolis nooga yimi ayaa waxaan weydiiyey waxa yar Mareykanku waa taynu dagaalnay asbaabta u soo guraya Soomaalida waa maxay wuxuu yiri madaxweynaha Mareykanka Clinton yaa markii dagaalkii looga adkaaday buu wuxuu yiri inaan intaas oo jeesh geyno George Bush wuu ku khaldamay buu yiri Soomaaliyon ku bedeli karna iyada dhanba $10 milyan inaanu 100,000 oo askari u kaxaynahay qalad bay ahayd Soomaaliya on $10 milyan ku bedeli kara iyada dhanba inaan 100,000 oo askari iyo intaas oo kharaja inaan ku gala qalad bay ahayd buu yiri inaan soo kaxeeyo $10 milyan ku soo qaado oo badda Mareykanka soo dhex dhigo oo marka halka ay absorption ku sameeyaan iiga filnayd buu yiri kulligooda oo idin inaan soo qaado oo mujtamaca Mareykanku dhuuqa iyaga dhan oo diinta ay ugu la dagaalamayaan aan ka tirtiraaba iiga filnayd buu iyada dhan buu typically ninkii shalay kula dagaalamayo madaaficda kula dhacay diyaaradaha maanta kabraha kula dagaalamay ayaa wuxuu u furay irdihii oo dhan inuu yiraahdo kulligeen ana idin qaadayo soo bax halkaas sidii ay haraad qaba ayagoo carabka lulayay isku shubeen Mareykanka waa taqdiid dadkaas waxa la doonayaa markay gaala noqdaan in lagu soo celiyo adig waayo nin Soomaaliya wuxuu ku yiri oo expert ay u haystaan ayaa wuxuu ku yiri Soomaaliya bergi intayna Mareykan ku duulin waa in Soomaaliya laga dhigaa state kamida state-ka Mareykankuna ay tawaliin carabtana laga fogeeyaa oo markaas Mareykanku oo maamulo ismana maamuli karnaa Mareykanku waa inay maamulaan iminka anaguna aan noqono state kamida Mareykanka oo Soomaali baa lagu leeyahay mutacallima oo historyga bartay oo lagu leeyahay waxba kala garanaya oo laga yaabo inuu xataa isu sharax la madaxweynaha inuu bari ku noqdo waa taa weeyaan hadafka asaasiga ay markaa kale yihiin nafaayadkii Mareykanka iyo reer Yurub ay qaadeen Sweden-kan ay kamid yihiin waxay ku dambi gareeyeen Soomaaliya badeeday birigeeda inta way ku xabaaleen ayagoo doonaya long term process inay markaa dadkaasi ay kulligood ku bedelaan oo ay ku sameeyaan wax la yiraahdo nuclear ay ku sameeyaan cultivation ay ku sameeyaan dadka oo ay ku bedelaan genetically inay ku bedelaan asaasan sidii Hiroshima iyo ka dhacdo kaleeto cid maanta muqaabil ka qaadanayso lacag ka qaadanaysa ma jirto cid hoy iskalena ma jirto sidaana in lagu hayo waana u imaan doona insha Allah hadafka siyaasiga ah oo saddexaad oo kale ah istishraaq oo kale yihiin Soomaaliya ee aan dadku ayna ka warqabin waxa weeyaan ummadda Soomaalida in laga fasliyo oo laga gooyo dadka kaleete ee muslimka xiriirka ay la leeyihiin kulliyatan in laga jaro Soomaaliya inay iyadoo Afrika ku taal oo madow inay taageerada muslimiinta daa'iman ku dhagan tahay boqolkiiba boqol muslim inay ahaadaan waa qalad ay yiraahdeen yahuud iyo nasaara ba isku waafaqsan yihiin dhamaantooda idin marka waxay yiraahdeen Soomaaliya waxay ahayd markii hore sabta kamida asbaada yahuuda oo u soo haajirtay muddo horeeto qarni Afriqiya u soo haajirtay sida dadkeeda taageeradan carabta ay taageerayaan qalad weeyaan islaamnimadan ugu wacana islaam asalkoodii ha loo celiyo oo dadkan ha laga saaro markii falaashaha ay dhameeyeen Ethiopia ka dhameeyeen waxay bilaabeen inay yiraahdaan Soomaalidu waxay ahayd sabda kamida asbaada yahuuda waxay bilaabeen marka dad la oran jiray Yibro Soomaalidu oran jirtay inay yiraahdeen Hibro way kalimadani dadkaanina waa yahuud marka kulligood la soo guro dad badan oo Soomaaliyeed isku dhiibeen Canada iyo Mareykanka inay yihiin Yibro inay yihiin ayagoon Yibro ahayn inay isku dhiibaan dad badan in shaqo la siiyo oo horey loo mariyo inay qaataan kaarar ay ku qoran tahay magacyadaas oo kii Daawud la dhihi jiray iyo kii Cali la dhihi jiray in David isu wada bixiyaan oo ku yiraahdo waan ku shaqaysanay inta North America joogo magacaygana waan bedelaya magac bedelku marka waa taariikh dheer oo socoto weeye magacan islaamiga ah Muhammad iyo Abdullah iyo Cali la yiraahdo marnaba inaanu meesha ka shaqaynin oo nu qofku haysanin oo ay dhantiisa aanu noqonin waa asaas ay doonayaan midii ila xanuunka badnad waxay ahayd gabar Soomaaliyeed baa waxay keentay inay yaro ay dhashay iyadu waxay keentay school elementary ah
كل كاس أنكي برنسبل كهايونس نقيني بها وحو يري أن ولا تجي أنا أيها وحو يري ويلكم مجعي كل كاس تري محمد باليري هذا forget about him we will call him Mike Mike بان ويري دون أبو يري إسكده why بان حد ويري سا Mike مركز it's difficult tomorrow for him to carry a certificate written on the Muhammad is a very difficult name حاجات كبرت معي محمد كاستمر اسمه difficult تيبا هابوي أنا قبل ما قاعد محمد باليري هذا بان كل كاسو يري هؤلاء ما تشيد أبوي لكن ما قاعد محمد ليري هذا نورث أمريكا وجماعة وشقين كانوا مركب for his benefit بوير وحن وير دون أبوي مايك أما ماو أيان وير دون أبوي ماو بابتاي مركا إمينكا ماو دوا محمد كي أو ما أنت HO دي يدبر أنت HO الكلي لسكو سوق هذا إني كارك كوبرتان ماو أيوة كعرّي مع محمد إني سمايستان وحن تاكوليه إن لجسي بقلوب تدك مسلمين تا أو صوماليين شعيل كأي أقبان دتك مسلمين تا كله يا رابطة يحرير كأيل ليهين يكحرنان تأيليهين يهيل كأيليهين أنت وإن لقت شرا أيا الله قلت لك قضية يدا السياسي كا ويهود ما هي المنسنة دجال كيجي عرضك الصور ما إنك استيقظ قولي ست يهود هذانا مسلمين تإنا نقولي دمانين رجدوا إنا دمان ويأكسونيهن مرك هيل كم مسلمين تكلا كإيماني أنت جوين كرام وإني جويانوي بندق أفراد مراها كم مراها شرقال كي قالده يواقع قرعان ما أنتيتو وحكم إذا إني أديك سدان رجال بيتكم وسيلة اللي يريد وسيلة الإعلام إني أديك سدان لتخريب الأمة المسلمة وخاصة الصومال إني أديك سدان ميديها هي فساد كيسية خراب كيسية إني واديك سدان أول بدلو أول دع الهبابيو دقن كا دينتا إن لدع الهبابيو ده كسحن لوجو ترجمه أو وحلا لو وحي حقيقة بجرودن كل جود بدلو عالم كان لو جارسيو أيضا مدب كلي بيكتر كلا إلا جارسيو وأساس كإليهين لون أديك سد الصحافة ده هي تلفزيون كا هي إذا عدها إن لو أديك سد سلو فلي عارين تامر كميديا وحلا سميو دكتور تهين أفلام تخلي عدها هي جنس جاء أيا الله إم بدن وحلا جود على إمك كي بلده أساس جاء هي تذكر أي كفير سدان إذا عدا نيوز كلا كفير سدو كل كما ورقة بيوروب لكن واحد كانين كي بلده أساس جاء هي أخبار تكريات كفير سنة سون نورمال كا إن لقول له شرط اللي وقدقه إنه لا تصعده كي بلده أي جنس أفلام تقاونا كسر قلنا همين كمية نايت ككذب إنه لا صعده هديك اللي تكيبل كان الغفر هني واي محاك وحلو شرط وقدقه وإنه سلاسة نقول عن سنة بكلنا نقول بريه المسلمين ترى مركب عن صوت قلي أفلام تقاونيت وفري كسر قليسة أفتر ميد نايت كا أيها كسر قليسة وجرك كستا مركب حلقة يا أبو مسلم أوليه هي زندي فاحشة اللي هو بسمعين أيوه وهمين كستا أيمان تهلك كسعود علمي هي كويتين يجك أبا فيرسانية كوان دين تلهين الصومالي ده أبا فيرسانية مسائل ككو إيمانية أفري الله بعتن كساع وحلقه يا كو إيمانية دقن كي قال هذا كسيحن نين قبل يسكول دقن ما يدقن فولحن خربا أو حيواني أكل دقن مية وحلا وحي أو كأرك تي في جدوني إنه كده بقى حاس كيسي يا مالين كستنا سوق جارته أو نوتي ماذا وحنا إذا كذا دقيقة يأكل كا بوكسيدا خربانة قريها يدين يا لسكاي لالية وكم مار مكرتان إسكت داي هداد إسكت داي ويدان نتيجة ذا كارك دونتان هدي إسكت داي ويدان نتيجة ذا كارك دونتان لكن هاي سكوكو دارننا علمه نفسات كأخلاق دوده هي الأقاليه إنه كبحنتين يغضب كإلهي أنت بهاي سكوت درسنا إسكاي لالية بوكس كاحمل وقرق اللغو صور دقي waxa weeyaan qanaatu shar weeyaan wax khayr oo ka soo baxaana ma taan la halkaasi si alla sidaad uga takhalusi karto uga takhallus ilmaha kolkaad laba bilood ka goydo kaybalka asaasiga oo cajalada kartuunisa kaliya u keento way ka samri doonaan kaybalka inta adaa u keenay markii hore si aad uga goyn lahayd ku dadaal oo uga fuj ilmahaaga haddii kale waxaad ogaataa wax alla waxay ku arkaan TV-gaas inay kugu dabaqi doonaan berito ayaguna isku fulin doonaan ogow liwaadka waxa laga barayaa waa ayaga lesbianka waxa laga barayaa waa ayaga iyo gayska
وحلا وحي أخلاق حمود ماشي لقى برا وهالكاوي إني داودان أمبانا كفلان عد كلا تي وجبه هني يفسر ما جرتو أرنت أيضا توجد سرقة دلك وحلا وحفشات شذوذ الجنسي أردن كل ماشي لقى برا وهالكاويان إسكاجر أو بوكس كاسا مانت وحوية هي ستيشن كأساسي كأساقا إسكايلا البوكس كا محل كاني إلو جبا بيو أخلاق ده إيا دور سنانته إيا قيم إيا كرامة ده إنساني جا أنت بقى إلو جبا بيو أو ضدك أي نقدان وحن كفكرينين إلا على شو ده يفرج جود ما هنوحكي أنا كفكرينين بل أي جارين إني إسكو فلان أمام الملأ إني إسكو فلان أو إنسانية ده كبحان درجة الحيوان إني جاران جامعات دحدة ده يذكر كيسا أيجو إسكو فولا ينن ينق أين أوتهاي ما أنت مار كيسا شيء مباحة أو لو قل يهي marka kuma aha wadan aad joogto haddaad adigu iska adkaydana ilmahaagu iskama adkayn doonaan marka taa waa inaad ogaataa waa xaqiiq weeye waa factis weeye si alla sidaad uga tabaabushaysan lahayd uga tabaabushayso qof ay dhimbil dabahi dhinac uga dhiganta waa inaad ahaatid weeye ama mas dhinac uga dhigan yahay saas iskaga fujilaada ay ku jirtaa weeye dabcan waan kugula jiraa anigu waxaa si sahlan u soo baxaysa qofka mujtamacaas ku dhex nool inuu akhlaaqdii gaalada si sahlan u qaadanayo oo dhaqankoodii qaadanayo oo labiskooda uu qaadanayo oo caadaadkoodii uu qaadanayo oo kastamkoodii uu qaadanayo sida uu mujtamacaagii muslimka kugu ahaa mujtamac mucallima sida uu kugu ahaa inuu mujtamac kaafirkaana mujtamac mucallima inuu kugu noqonayo ogowtaa hadafka shanaad oo miraha ka mid ah oo khatarka halka yaala waxa weeyaan in la soo qariray la iskuna waafaqay markii Soomaaliya ay ku soo jabeen way waxaan hayaa chronological system oo Soomaaliya from 91 to 97 ayaan hayaa iminka oo wax alla wixii ama Budrus Raqiis iyo wixii la socday ay wada qoreen dhamaantood iyo gaaladii iyo wixii ay ku fashileen ay ku qoran yihiin iminka oo governmental document ayaan hayaa iminka jaamacadda oo inta leeg Faransiis iyo Ingiriis inta bana ku qoran waxa xaqiiqdu ay tahay waxa lagu baabaashay maranka hadaya mawduuca dhaqaalaha United Nations 3 bilyan oo dollar ayaa lagu cunay mishinkii Soomaaliya marka maqaalka aan ka qoray ciwaankiisu wuxuu ahaa dhaqaalaha United Nations ay ku bixiyeen Soomaaliya ma ayaga qaatay mas ummadda la siiyay xaqiiqdu waxa weeye ayaga qaatay ummadda lama siinin ceel ma qodin oo isbitaal ma dhisin oo iskuul ma dhisinin oo dad ma quudinin oo beera ma samaynin oo daara ma dhisinin maxaa lagu qabtay waxaa lagu qabtay ummadda in la isku diro oo la isku laayo oo la isku gubo kaliya taa loo geeyay inta iyagu soo qaateen moginta kale sidaas loo sameeyay human development-ga markaad fiirisid human development-ga asaaskiisu waxa weeye bini aadamka horumarintiisu waa inaad tacliintiisa iyo dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisa inaad horumarido weey